wiil yar oo ku dhashay dalka Australia ayaa warqad u qoray maareeyaha guud ee shirkadda diyaaradaha ee Qantas ee dalkaasi laga leeyahay. Fadlan hadalkayga dhageyso oo dhab u qaado, ayuu wiilkan yari ku soo qoray warqadiisa oo aad loogu faafiyay baraha bulshada. agaasimaha guud ee shirkadaasi diyaaradaha ayaa waxa uu ka soo jawaabay warqadda wiilka, waxaana uu ku marti qaaday kulan dhexmara labadooda. wiilka yar ayaa waxa uu sheegay inuu ku riyoonayo inuu furo shirkad diyaaradeed oo magaceedu yahay Oceano Express, waxaana uu talo weydiistay agaasimaha sidii uu u hirgelin lahaa shirkadaasi. waxa uu intaasi ku daray inuu cilmi baadhis ku wado nooca diyaaradaha uu u baahan yahay, tirsiyada diyaaradaha iyo weliba nooca cuntada diyaaradda dhexdeeda macaamiisha laga siin doono. balse waxa uu sheegay inuu la kulmay khasaare, waxaana uu agaasimaha weydiiyay sida looga baaqsan karo arrintaasi. agaasimaha ayaa waxa uu jawaabtiisa ku daray, dadka suuqa nagula tartamo waana nama weydiiyaan, mana siiyo haddii ay weydiistaan, balse adiga waad ka duwan tahay. waxaana ugu wacan anigaba markii aan wiilka yar ahaa waxaan isweydiin jiray sida diyaaradaha ay u shaqeeyaan iyo suurtagalnimada inaan shirkad aasaaso. سعيد أحمد تمريسة ورركة تلفزيون كعالمي جاه ستار.